أنا مركب مقدسي كده أنا دانت قروح بدل الإبرة إن هالكان كلابته أو كوحة هالكان كده سن دانتون كلا دولو ديسفي على الإبرة ماشي علينا وح يجيري وحاجته دانت على قفتو ده هذا اللي راح يوصل وجوده دانت وجوده خرنا يوده مركز ما يستوسيري هذا اللي أصغرنا اللي ديسن واجع له دانت هنا برتنا ورا ده هل يقول لي كلمة تاس waxaan joognaa garoonka magaalada Jigjiga Garaad Walwal annagu safarkii Socday baan ahaynay waa ku mahadsantii soo dhaweyntiisna maadaama aad si qurux badan soo dhaweeyay walaalkeen Liibaan leecaato waliba aad u dhooban oo baahan la baxnaaniyo inaad si fiican u soo dhaweyseen dhalinyarada qurux badan ee magaalada Jigjiga aad baad u mahadsantiin TV-da iyo YouTube-da gaarka loo leeyahay meesha ka soo qayb galay qurxiyay aad baan idinku mahad celinayaa aad baan u mahadsantihiin ninka intuu magaalada joogo martiba inuu yahay si qurux badan loo soo dhaweeyo magaalada soo ka sheeganaya uu satagina isagoo u sheeganaya ha tago hadoo la yiraahdo fanaaniintii hawshan culus soo qaban qaabisay maartu Faysal oo horeeyo ninka cabsi kaama jooga asagana uu ku jiro kooxii 3-4 kooxood aad baan u salaamayaa iyagana cameramanada waxaan maleynayaa ninkana ugu tuweynaa Sadaamo waxa ragga ableed wada gareeyay aad baad u mahadsantahay Sadaamo idinkana hal baa idin salaamaya iyo maqaamkiina aad ku salaamaya bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore ummadda Soomaaliyeed meel walba jooga waa salaamaya anigoo magacayga iyo magaca fanaaniinta Soomaaliyeed iyo magaca fanaaniinta deegaanka ku hadlaya yaa waxaan soo dhaweynayaa walaalkii Liibaan oo leecaato loo yaqaan oo leeyahay ku soo dhaw magaalada Jigjiga wadanku waa wadankaagii gacmo furan qalbi furan iyo ummadkooda jecel waxaan rajaynayaa insha Allah taala inaad magaalada aad uga heli doontid haddii la raali kana soo dhaw aad baan u salaamayaa kamaramaaniinta dhalinyarada nala soo dhaweysay walaalkii Liibaan aad baad u mahadsantiin mar kale assalaamu calaykum soo dhawaada dhamaantiin walaalkii Liibaan Ali Aadan leecaato waxaan ku leenahay mar koobaad mar labaad mar saddexaad buu soo dhaw magaalada waa magaaladaadii dhalinyarada waa dhalinyaradaadii dowlad deegaanka caasimada dowlad deegaanka maxaan raadayay magaaladii garaadada waxaan ku leenahay Liibaan adiga iyo dhalinyaro badan oo kale baa ka dhina waxa soo dhalinyarada maanta waxay taagay Liibaan waxaan rajaynayaa kaliya ma dhalinyaro kale oo fara badan inaan u istaagno oo aan u kacno oo aan ku soo dhaweyno magaaladooda ma tiin martimaan ku leenahay Liibaan waxa joogtaa magaaladaadii waxa joogtaa dadkaaga waxa joogtaa dalkaaga soo dhawo mar kale walaalkii maanta waxaan ku taaganahay soo dhaweynta walaalkeen Liibaan Aadan Cali oo ku magac dheer leecaato Liibaan in badan baad geesaha naga martay mara Hargeysa tagto iyo mara Muqdisho tagto marka maanta farxad bay noo tahay inaan magaalada Jigjiga timaadid magaalada Jigjiga waa magaaladaadii waa dalkaagii
xamarka waxay dhahaan marinkaada weeyaan marka halkan waxaan ku leenahay waa gurigaaga weeye soo dhawow anaga si sharaf inoo tahay haddaan nahay bahda youtuberada marna isku magac baynu nahay oo magacaynu wadaagnaa markaa si sharaf leh iyo si maamus leh kusoo dhawow magaalada weeye dhammaan horta waxaan salaamayaa dhammaan hablaha quruxda badan leh ee waqtiga dheeraha intaan diyaaraddan soo saarnayn safarkeennaba labada duhurnimo halkan yimid iyo dhallinyarada Soomaaliyeed ee ah fanaaniinta iyo youtuberada oo iskugu jira iyo abwaaniintaba waxaan idin leeyahay horta Allah idin sharfo aad way jirtay markii aan hargeysa tagay ee lagu qabsado lahaa waana dul martay laakiin markaan aniga u socda Muqdisho ayaan waxaan jeclaystay inaan jigjiga aan dul marin aan ku soo dago dhalinyaradeeda isbarano aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa aan jigjiga ku hooyanayo waxaan u mahadcelinayaa dhammaan fanaaniinta Soomaaliyeed ee halkan ku sugan iyo kooxaha dhaantada iyo gabdhaha aadka u quruxda badan leh umaasantiin liibanow dabcan waa markii ugu horeysay ee aad jigjiga timaado waxaad noqotay waxaan kugu ogaan dhanka jilaaga fanaan baad isu bedeshay jigjiga hees ma u qaaday horta weli jigjiga hees ma aan qaadin laakiin insha Allah mar baad soo dhaweyn saan ay u dhacdo ma aragtay hargeysa saas ku imaaday tan in caawa ku imaada laga yaabaa insha Allah marka waa isla wada joognaa jigjiga dabcan waa magaalo kamid ah magaalooyinka ugu tunka weyn deegaanada Soomaaliyeed maxaad ka filaysaa maanta magaalada banaankeedii baan joognaa garoonka magaalada markaad gasho maxaad isleedahay dhab ahaantii horta sur dheer Ilaahay waa ii dhiibay hoygaan dhaantada waxaan rajeynayaa markaan Muqdisho ka degaano dhaanta qurux badan la baray inaan halkan ka laabto oo kooxaha halkan ka dhisan dhaantooyinka la dheelo si fiican la baro baasha odagii calina wuxuu igu yiri waxaa jirto dhaanta lacala aad gaftido dhahay hadal yar hoos lagu tuura dhaanta lagu dhex qarinayo dhaa markaas ma inay istusisaa yiri hadaladaas qaarna laga dhisan waa jeclahay dhaantada inaan bartana waa rabaa haligu dhiirigeliyo intaas liibanow dabcan Soomaalidu lahjada kala duwan bay leedahay si fiican jigjiga lahjad u gaaray leedahay bulshada reer jigjiga hadaladooda maxaad ka ogtahay ana horta waxaan ku fiicanahay koobiga aada koobi ugu fiicanahay hargeysa markaa ka soo laabana ariyaa maduucanta walaal ana dhaha ka soo laabtay oo bil waas ka jiri waay hadda markaan airportkii Ethiopia ka soo baxayna hal eray lagu soo dhajiyay aga huna halka ma jigjiga marka balada magaalada gudaha sii galo ana waa ka laaban doona may eegan waan kugu daraynaa eegan ku daray soo dhaweeliyo markaa You're